إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد لما walaalaha buga ku xiran facebooka waa xalqadii toddobaad ama kelmadeennii toddobaad oo ka mid ah kelmadahan ugu talagalay 10 beri ee bisha Dilxija ama Carafa fadliga badan. Kelmadan ama xalaqadan iyo midda xigtay waxay ku saabsanaan doonaan axkaamta ciidda insha Allah taala. bal kelmadeennan oo qayb axkaamta ciidda ku saabsan si kooban ayaan u soo qaadan doonaayo masalada axkaamta ciiddu masala sanad walba soo noqota laba jeerna laga hadla wey. masalada koowaad waxaa weeye xukunka salaada ciidda. salaada ciidda xukunkeedu waa sunna mu'akkada wey, ma aha farad mana aha waajib sida raajixa aqwaasha ahlulcilmiga daahirka nusuustuna ay tilmaamayso. waxaa ugu cad xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qisadii dhex martay Dimaam ibn Thaclaba markii ergeygii nabigu diray u tegey 5 salaadoodna u sheegay ee ay soo direen qoyskoodii ay dheheen naga soo hubso. waxyaabuu nabiga weydiiyey waxaa ka mid alayhi salaam salaadaha 5 waajiba markuu yidhi hal calaya hayruhaa, waxaan 5 ahaynoo waajib oo salaadoo la igu leeyahay miyaa jirta? nabigu wuxuu yidhi laa ilaa an tatawaca. wuxuu yidhi maya, inaad sunno tukanaysa maahane. intaana waan xasuustaa ma arag meel si toosa salaada ciidda dadka inay tukadaan loo amray maanan arag. waxa ugu dhowee loo daliishaday inay waajib tahay nabigu inuu amray weeye haweenkaan sida caadiga gurigooda ka bixin iyo xataa kuwa caadada qabaay inay goobta isutaga ay yimaadaan oo ducadii allabariga muslimiinta ka soo qayb galaan meesha lagu ducaysanayo. dadka lala hadlaya dee dad ahlul wujuuba ma wada aha, dad ay jamaacaadkii kale ku waajibaanna maaha. marka culimmada qaar ba waxay yidhaahdeen haddiiba dadkii sidaas ahaa la faray dadkii kalena waa min baabi awla. laakiin xadiidkan qisada Dimaam ibn Thaclaba waxay u suubataa inay awaamirta la isfaray astaan u noqoto tilmaamaysa inaanu wujuub iyo qasab inuu yahay aanay ahayn. saa darteed sida culimmaduna u badan yihiin xadiidka Dimaam ibn Thaclaba iyana ay tilmaamayaan salaada ciidda xukunkeedu waa sunno mu'akkadahoo la adkeeyey kana mid a astaamaha waaweyn ee shicaarka islaamka in la taga loo baahan yahay ee lagu aqoonsado wey. dabcan tegitaankeeda waxaa qofka ka rida sunnanimadeeda xataa, ama haddii la yidhahda waa waajib waxyaabihii salaada jamaacada ridi jiray ee cudurdaarada ahaa. taasi waa masalada koobaad ee axkaamta ciidda ka mid a. masalada labaad waqtiga salaada ciiddu waa markay qoraxdu soo baxdo waxoogayna soo kor noqoto. waa waqtigii nahyiga ee shaytaanka ku caabudaa beena qarnay shaytaanin ku sujuuda la yidhaahdaa ay dhaafto. culimmadu waxay ku magac tilmaamaan qadarka kornoqoshada qoraxda in lagu qiyaasi kara waran joogii. dabcan markay kaa fog tahay
waxa waran joogii lagu qiyaasaayey marka loo dhow yahay waa dheer yahay. marka waran joogii inay dhannaato qiyaasta baa looga baxaa wakhtigii nahyiga. wakhtigaasuu salaada bilaabanaya ciidda wakhtigeeda soo gelitaankiisu in la tukado. in la dedejiyaana sunno oo wanaagsan, gaar ahaan ciidul adxada hadda wakhtigeedii inugu soo dhow yahay ka hadlayno. sababtoo ah waxaa la rabaa marka salaada la tukada kadib in wax la gowraco, dadkuna wax cunaan, saan sunanka axkaamta qayb ka mida dib kaga sheegi doono insha allahu tacaala. taana waa masalada labaad ee salaada ciidda axkaamteeda la xiriirta waqtiga salaada ciidda la tukanaya. haddii wakhtigeedaa uu dhaafo qofka ilaa wakhtiga duhurka hortiisa ee zawaalka ah bay joogtaa. hadday maalintaas dhaafto, maalinta dambe isla waqtiyadii baa la qadayn karayaa, sida nabiguba sameeyey sal allahu aleh wasalam iyo saxaabadiisu, in ciiddii fitrigii loo soo sheegay wakhti dambe oo wakhtigeedii dhaafay, kadibna subaxii dambe iyo maalinkii dambe ay tukadeen. waa la qadaynayaa wakhtigeeda hadduu dhaafo, wakhtigaa wakhtigiisaa la qadaynayaaye xilliyo kaleo duhur kadib iyo casar iyo habeen iyo lama qadaynayo. masalada saddexaad, salaada ciiddu aadaanna ma laha, aqimna ma laha, soo baxayna ma laha. muslimkuna ciid tahay inay og yihiin iyo sunnada takbiirta habeenkiina ka horraysan dib ka tilmaami doono insha allahu tacaala. goobta marka la isugu tagana lagu qaadayo waa ogeysiin iyo wargelin iyo baraarujin dadka ugu filan. lamana aadaamo, lamana aqimo. taasina waa masalada saddexaad ee axkaamta salaatul ciid la xiriirta. masalada afraad ee la xiriirta axkaamta salaatul ciid waxaa weeye in bannaanka lagu tukado oo meel bannaan ahoo furan lagu tukado ayaa sunno ahoo wanaagsan. sidaasuuna nabigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam. saxaabadu waxay leeyiin almusalla, bannaankii lagu tukan jiray ayuu tegi jiray. haddaanay iman duruuf diidda in bannaan lagu tukado, waxay noqon kartaa dowladihii oo diida iyo maamulkii meesha ka jiray, waxay noqon kartaa roobab loo bixi waayo, waxay noqon kartaa cabsi kale oo loogu tukan waayo, waxay noqon kartaa meel bannaan oo lagu tukadaba in la waayo, sida muslimiinta meelaha qurbaha ku nool iyo kuwa badan oo ka mid a qaarkood qabsata. hadday dhici dhacdo in meel bannaan lagu tukan kari waayo sabab ay noqotaba, masaajidda waa lagu tukan karaa haddii iyaga laftooda laysu ogolaado. dadkuna sidii jamaacadii bannaanka loo tukanayay inbaa loo tukanayaa. hadday masaajiddii suurageli weydo sida ciidulfitrigii ina dhaafay oo kaleeto, dadku guryahooda ay ku tukanayaan, jamaacana waa tukan karaan intii guriga isla joogta ama isgaari karta. kelikelina waa u tukan karaanoo salaada ciidda shardigeedu ma aha inaad jamaaca ku tukato. kelikeli waa loo tukan karaa. qofka ama duruuf qabsato ama dadkaba si guud meelaha ka mid a haddii loo diido inay ciid iyo bannaan isugu yimaadaan. marka qof keligii uu tukanayaay, saan tilmaami doonna khudbo uma baahna, laakiin salaad kastoo jamaaca lagu tukado ciida, ama bannaan ha lagu tukado, ama masaajid ha lagu tukado, ama guri iyo xafiis iyo goobo kale ha lagu tukadee, isku xukun wey. masalada shanaad ee axkaamteeda ka mid ah, salaada ciiddu waa 2 ragcadood. labadaa ragcadood wakhti kasta oo la joogo iyo safar iyo nagaadi meeshay kugu qabsataba, waxa la tukanaya salaada ciiddu waa 2 ragcadood keliya. saasaa nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam, muslimiintuna ku ijmaaceen oo isku raaceen. sidaasaana loo kala dhaxlay quruntii faraha badnayd ee islaamku soo jiray. innagana sidaasunbaa laynaga doonaya inaan u raacno qaabka salaada loo tukanayo, oo ah masalada 6aad. salaada ciiddu
waxaa loo tukanayaa allahu akbar bay ka bilaabataa sida salaadaha kale, assalaamu calaykumna way ku dhammaataa. waana 2 ragcadood oo salaadaha caadiga ee subaxa iyo sunanka iyo lamid ah way, laakiin waxyaabo dhowra ayay kaga duwan tahay. waxa koobaad ay kaga duwan tahay markay qofku takbiiratul ixraamka xirto, ducada istiftaaxana akhriyo, ragcadda hore 7 jeer buu takbiirsanayaa oo ku celinaya allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar, 7 jeer lagu celinayaa. kadib shaydaanku iska naarayaa, faatixadu aqrinayaa, sunnada ka dambaysu aqrinayaa. ragcadda labaad markuu u soo istaagay allaahu akbar soo yidhaahday istaagu dhammaystirmana, kadibna wuxuu dhahayaa 5 jeer yuu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ku celinayaa. takbiiraadka 7 ragcadda hore raacsan iyo 5 ragcadda dambe raacsan waa wax salaada ciiddu ay la dheer tahay salaadaha kale. takbiiraha marka la takbiirsanayaay maxalka booskoodu waa ducada iftitaaxa markaad dhammayso acuudu billaahina aadan gaarin, waa 1. gacmaha kor baa loo qaadayaa dhammaantood. haddii qofku qayb ka mida ka tagto uu faatixadii bilaabo ama u wada halmaamoba wax sujuudu sahwi ah ma laha, loona soo noqon maayo. markaad takbiirtaa dhammaysata faatixadaad aqrinaysaa. faatixada marka la aqriyaa kadibna suurad baa lagu darayaa. sida sunnada ah waa inaad ragcadda hore raaciso sabbix isma rabbika alaclaa, ragcadda dambena aad raaciso hal ataaka xadiidu lghaashiya. waxaa kaloo sunno ah inaad ragcadda hore raacisaa qaaf alqur'aani almajiid, ragcadda labaadna raaciso iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar. labadaasba waad samayn kartaa, laakiin labadoodu qasabay salaada asixitaankeeda ku xiran tahay ma ahane, wax kale haddaad aqridana salaaddu way asaxaysaa. qiraa'ada salaada ciiddu waa lala jahrayaa, korna waa loo qaadayaa. masaladaana nabigana waa ka sugan tahay, waana masale ijmaaca oo fuqahadeenna ay isku raacsan yihiin. masalada 7aad waa khudbada. salaaddii markay dhammaato yaa asalaamu calaykum assalaamu calaykum la yidhaahdo, waxaa xigaayey waa khudbatulciid. dhegaysigeeduna waajib maaha, qofkii rabana waa wanaagsan tahay inuu dhegaysto wacdiga. qofkii dan iyo hawl lehna wuu iska tegi karaa ama maqalkeeduba ku adkaado. khudbada ciidduna salaaday ka dambaysaa, waa halka ay ku kala duwan yihiin jimcada iyo ciidda. jumcadu khudbadaa horeysa, ciiddana khudbadaa dambaysa. intaasi waa in kooban oo ka mid a axkaamta salaada ciidda ugu muhiimsan, tahay qofka inaan isxasuusinno mudan, laakiin aan ugu cusbayno sanad walba 2 jeer aan fal ahaanna u samayno, inta badanna axkaamteedii la isxasuusiyo oo lagu celceliyo. xalqadeenna qaybtii koowaad ee axkaamta ciidda ahna xalqadihii guud iyo kelmadihii guud tii 7aad halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa. intaan xalqadda xigta isaga imanayno sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من